barnaamijka kobciye waa barnaamij tixano ah kana kooban 30 qaybood kuwaasi oo taabanaya nolosha qof kasta oo naga mid ah. Kobciye waa daqiiqado kooban oo kobcinaya naftaade ha u dayman la'aan. Waa diyaarintii iyo soo jeedintii al-ustaad Coach Maxamed Ibn Umar. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada barnaamijkeeni kobciye iyo 10 cinwaankiisu yahay goobta raaxada. maxaa keena in dad badani sidii aad ku ogeyd aanay iska bedelin? maxaa keena in dadku wax xun ka doortaan wax wanaagsan? dad badan ayaa walwal ka muujinaya kana baqaya inay bedelaan noloshooda lana yimaadaan qaab wax ka bedeli kara sida noloshooda ku socoto. waxaad arkaysaa inuu rabo inuu taagnaado isla meeshii aad sanad ka hor ku ogeyd, isla dadkii uu yaqaanay oo aan waxba iska bedelin. sababka ayaa ah in dadkaasu ka baqayaan waxa ka soo wajihi kara hadday ka dhex baxaan goobta raaxada iyo waxa ay la qabsadeen. waa maxay goobta raaxada? goobta raaxada waxaa afka carabiga loogu yaqaana ama lagu magacaabo mandiqatu raaxa aw daa'irat al-irtiyaax ama comfort zone oo ah afka Ingiriiska wax lagu dhaho. waana halka ay ku urursan yihiin dhammaan caadooyinkeenna iyo waxa aan la qabsanay ee ay adag tahay inaan iska dayno. waa goob aad dhex joogto mar kasta oo aad ka samaysatay buul ka dhisan caadooyinkii aad samayn jirtay la qabsatay kuwaas oo aadan rabin inaad bedesho ama aad ka dhaxbaxdo, oo isugu jira kuwo wanaagsan iyo kuwo xun intaba. tusaale, hal nooc ama noocyo gaar ah oo cunno ah inaad cunto oo aadan ogolayn waxaan ayaga ahayn inaad afkaaga soo mariso. dad gaara inaad kala socoto dadka aad taqaano oo dhan, inaad dad gaara wax ka dhagaysato ayaga cidaan ahayn aadan awoodin inaad wax ka maqasho, iyo waxa la midka ah ee dhaqamadeena kala duwan ka muuqda. haddii lagu yiraahdo waxaa jirta xaflad weyn oo ay isugu imaanayaan dad badan oo aan ka yareen 1,000 qof, waxaana kaloo kasoo qaybgalaya dad mas-uuliyiin iyo aqoon-yahano isugu jira oo magac ku leh bulshada dhexdeeda, waxaadan ku qoran tahay inaad kelimad ka jeediso, maxaad dareemi lahayd? cabsi iyo gariir, soo maahan? waxaadan isdhihi lahayd amaan ku fashilmaa. markaasaad ugu dambayn waxaad dhihi lahayd kuma jiro aniga ee qof kale raadsada, soo maahan? waa sidaas qofka markii ugu horeysay ay tahay oo waxa uu ku adag inuu iska bedelo sidaas kana dhaxbaxo goobta raaxada. ka waran haddii lagu soo bandhigo inaad ka tagto shaqadaadii oo aad u wareegto shaqo kale, hadda aan lacag fiican laga helaynin, laakiin waqti kadib aad helayso lacag badan oo intaasoo goor ku laabmi karta lacagta aad hadda qaadato. ka waran haddii lagu yiraahdo ganacsi ku gaara bilow oo isaga tag shaqadan aan horumarka lahayn, oo lagu sheego inaadan dhaqso uga helaynin faa'iido, ee u baahan yahay sabir iyo dadaal badan iyo inaad geliso waqti dheer oo ka badan kan aad shaqada aad maanta hayso aad geliso. maxaad samayn lahayd? ka waran haddii lagu sheego ajar weyn oo aad ka helayso haddii aad ka tagto dambiyada naftaada caadaysatay ee alle kaa fogeynaya. ma ka tagaysaa dambiyadaas oo geesinimaad la imaanaysaa, mise waxaad dooranaysaa inaad ku sii jirto oo aad dhex fadhido goobta raaxada? sababka dadka ku keena inay goobta raaxada dhex fadhiyaan ayaa ah cabsi ay ka qabaan waxa uu noqon karo hadduu isbedel sameeyo. badankoodna waxay diidayaan inay la kulmaan xanuun, guuldarro, khasaaro, murugo, hungoobid iyo waxa la midka ah, oo waxay u caranayaan dhanka raaxada, guusha, farxadda, faa'iidada. waxaysan ogeyn inaanay gaaraynin ujeedooyinkii noloshooda hadday rabaan inay markasta dhinaca raaxada uun joogaan, waxayna dhisayaan darbi ka hor joogsada waxa kasta oo wanaagsan. qofkii raba inuu guul gaaro waa inuu guuldarooyin la kulmaa. farxadaad rabto waxaa ku soo maraya mararka qaar aadan faraxsanayn. haddaad rabto inaad ganacsigaagu faa'iido waxa laga maarmaan ah inaad khasaaro diyaar u tahay mararka qaar. haddaad rabto inaad raaxaysato waa inaad xoogaa isdhibto oo aad xanuun la kulanto, daashaa marar badan si aad u gaarto raaxadaas. haddiise aad darbi isaga xirto xanuunkii
dhibkii, guuldaradii iyo khasaarihii. waxaa sidoo kale derbi isaga xiraysaa guushii, raaxadii, faa-iidadii iyo farxaddii. dhibka lala kulmayo iyo diididda naftu diidayso in laga baxo goobta raaxada waa wax caadi ah, loona baahan yahay inaan laga baqin ee la waajaho. haddii kale waxaan ku xirmaynaa goob yar oo loo yaqaano goobta raaxada, weligeenna wax horumar ah kuma tallaabsanayno. si aad uga baxdo goobta raaxada waxaad u baahan tahay inaad doonis dhab ah la timaado. doonistana waxaan uga hadalnay keligeed qeyb gaar ah oo barnaamijka ka mid ah. waxaana dhici karta in mararka aad goobta raaxada ka baxdo inaad waxaana dhici karta marka aad goobta raaxada ka baxayso inaad dhibaato iyo culays la soo wajaho, laakiin waa sida culayska aad la kulmayso marka aad rabto inaad iska jebiso silsilad kugu xirnayd. hore ayaa waxaa loo yidhi waman takun ilcalyaau himmata nafsihi fakullu aladii yalqaahu fiiha muxababu. macnaheedu yahay ruux kastoo hankiisu sarreeyo wax kastoo uu kala kulmayaa gaaridda hankaas sare waxba uma arko. hadda ka hor ayaan weydiiyey qolo, weligaa bariis iyo cinab ma isku cunteen? mase cabteen cabitaan laga sameeyey moos iyo liin dhanaan la isku shiiday? mar ayaan bogga aan ku leeyahay goobta wada xiriirka bulshada ee facebooka kusoo qoray yaa sameeyey cabitaan ka samaysan moos iyo liin dhanaan la isku daray, ayaa dadkii badankii dhaheen macquul maahan, dhanaan iyo macaan sidee la isugu dari karaa? qaar kaloo badan ayaa waxayba ku andacoodeen in calool xanuun laga qaadayo. waxaad arkaysaa in dhammaantood ay dhex fadhiyaan goobta raaxada oo aanay rabin inay tijaabiyaan ama bartaan wax cusub, oo ay doonayaan keliya wixii naftoodu la qabsatay. anigaa tijaabiyey oo qasay iskuna daray moos iyo liin dhanaan, waxaana iisoo baxay cabitaan aan aada ula yaabay oo cajiib ah. waxa dhibaato ah oo caafimaad xaggii ahna kalamaan kulmin. waxa iigu riixay inaan sidaas sameeyana waxay ahayd balbedel cabitaanidan aada baratay, kana bax goobta raaxada oo tijaabi wax cusub, cabitaan cusub. qof ayaana ii sheegay in markii mooska iyo liinta la isku qasayo in lagu dari karo caano oo si cajiiba dhadhanku noqonayo. si kastay ahaataba isku day inaad wax tijaabiso oo aad ka baxdo goobta raaxada. dabcan tijaabi wax aan diinkaaga iyo caafimaadkaaga wax yeelanayn. haddii aad saaxiibkaa ku tiraahdo inakeen maanta waxaan aadaynaa maqaayad hebla oo aan soo tijaabinaynaa adeegeeda iyo cunadeeda ama cabitaanadeeda, wuxuu ku leeyahay nagada midan aan naqanaya nooga fiicane. wuxuuna kuusii darayaa intaas maahmaah iyo murti uu rabo inuu xujo uga dhigo dhex fadhinta goobta raaxada, oo wuxuu ku leeyahay waxaad taqaano ayaa ka fiican waxaanad aqoon. tijaabada iyo isku daygu waa wax aasaaska u ah hindisaad kasta iyo curin kasta. wax kastoo maanta dunida dusheeda yaalla ee aadanuhu sameeyey soona curiyey waxay ka yimaadeen isku day iyo tijaabo, mana suura gasheen in la gaaro haddii dadku iska dhex fadhiyaan goobta raaxada oo aanay ka bixin, iskuna dayin wax aanay hore ula qabsan. haddaad qof kula taliso inuu barto takhasus gaar ah adigoo ku salaynaya awoodaha ilaahay siiyey ee aad ku aragtay ama kaaga soo muuqday, ruuxaas ayaa wuxuu ku leeyahay waa dhib badan yahay ama ma awoodo amaba kama bixi karo. haddaad weydiiso miyaad tijaabisay takhasuskaas ama wax laga qoray miyaad akhrisay hadda ka hor, wuxuu ku leeyahay maya. wuxuu dhex fadhiyaa goobtii raaxada. gabyaa carbeed ayaa wuxuu yidhi la astashilanna asacba aw adrika almunaa faman qaadat ilaamaalu ilaa lisaabiri. walle waxaan fududaysan waxa adag ama waxaan gaarayaa hididiiladayda, uma hogaansamaan rajooyinku qof aan dulqaad lahayn. marka aad isku dayayso inaad wax cusub tijaabiso waxaad ka baxday goobta raaxada. marka aad cunayso cunno aadan hore u cunin waxaad ka baxday goobta raaxada. marka aad samaynayso markii kuugu horeysay wax aadan hore u samayn waxaad ka baxday goobta raaxada. ka bax goobta raaxada oo jabi silsilada kugu xiran si aad u tallaabsato horumar saameyn weyn kaga taga noloshaada. qofka wuxuu horumari karaa markii uu isbedel sameeyo, wuxuuna isbedel samayn karaa markuu wax cusub tijaabiyo, wuxuuna wax cusub tijaabin karaa markuu ka baxo goobta raaxada.
mahadsanid. diiwaangeli wixii aad faa'iiday isku day inaad dhaqan geliso siina faafi